munaasabada ulka gobodii xarunta madaxtooyada ku meel deerkan ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo ma haytay toolanka mahadnagay golaha wakiilada dawlad goboleedka koonfur galbeed wana la ka dhawaayay hambaliina lanka daray xubno cusub ee aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dhawaan la ka dooraday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen gudoomiyaha baarlamaanka دكتور علي سعيد فقي وزير تمرتي خيرات كبير حكومة فدرالك الصومالية لما ذا دولة قبلات كونفور قلبت جودي جرجلين تدورشوين كدولة قبلات كونفور قلبت يوم التشرف كلا يعيت مناسبتهم من كم واحد نجاي قولها وكيلة دولة قبلات كونفور قلبت دوان سياد كحب نوت أقل كسر برلمان كجمهورية فدرالك الصومالية أي كمية لدونا ديجانا كونفور قلبت يبيدبك الدور ذن ساسوك لأنها حنبلي لأن كدراي حبنا عصوب أقل كسرات فنانين هبلada koonfur galbeed iyo munaasabada intii socotay ma ka bandhig kana suugaan la ka magaca fanaaniinta hobbolada koonfur galbeed iyo munaasabada intii socotay ma ka bandhig kana heesla ka amaanay siyadka xubnood ee aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanki aslabiyo baakin bayana rubsi ka barane baarlamaanki aqalka sare Soomaaliya ami fiyaati munaasabada maxadnaga golaha wakiilada iyo hambaliyada sanatarada cusub intii socotay ku qaybgaliyalka may dhambaal hambaliyeen diraayana sanatarada cusub iyagoo maxadnaga golaha wakiilada dawlad goboleedka koonfur galbeed oo codyo ka dooraday siyadka xubnood ee aqalka sare senator Xasan Xuseen Xaaji waana wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku mid nagadi siyadka xubnood ee uu ka hambaliyada landiraay maysu golaha wakiiladan ku mahadnagay oo kalsoonida leh iyo ka dooradan mandiniga kala madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka bogaadiyay sidoo dadeji sidii doorashada xubnaha aqalka sare dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo dhameystir lahaaytay xildhibaanada oo senatarada ah iyo oo dastuurka ku meel gaarka rahaw doorashadii ku qiibgaaday oo senatariyaalkana hasaari may lahaa mahadsantiin may gudateen waajib dastuuri ah wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cabdinuur Cabdi oo ku qaybgaliyalka munaasabada qayb ku hay iyo dhimidii ku hadalay meynus hambaliyan diray sanatarada cusub golaha wakiiladana ku mahadnagay sidii iyo codyo kalsoonida leeyahay ka dooradan sanatarada cusub ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ka bedelatoona baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waasi suubiraan baarlamaan suubi isku dhaaf baarlamaanka dhiirida xataa inuu suubi iska dayni jarna iyadaan ka mahadsantiin saasoo kale may mahad gaar ah madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo suuna fursadaas si sanatarada la dooraday xataa aan rakoro may qayb ku lahayn soo xulitaanka iyo xulitaanka xildhibaanada saas rakoorku dhikigeeka oo 8 sanatar iyo 8 qof kale oo la tartamaasay tumeel leh musharax oo madaxweynaha qori doorasho feeran qobadi doorasho una rakoorna ma gashay kor doorasho xor iyo xalaal leh oo un ku dhiino maamul goboleedyada kale qeyrkin hay gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Dr. Ali Sa'id Fiqi ma isku bogaadiyay xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed sidii shaqadii oo gududan sugan hambaliyan diray sanatarada cusub waxa lagu farxo runtii in maaragtay ay doorasho qurux badan ka dhacdo oo qof walba oo maaragtay tanaasul aan jirin oo qof walba maaragtay lagu kala baxay maaragtay sanduuqa doorashada markaasna farxad weyn ay noo tahay madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo munaasabada khudbad dardaaran iyo waliba bogaadin ay u soo jeediyay xubno cusub ee aqalka sare baarlamaanka yaan ka horeyn maysan mahadnagay golaha wakiilada dawlad goboleedka koonfur galbeed oo codyo ka dooradan siyadka xubnood ee dawladda federaalka ka mid doona aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waqtigiin muddadan doorashada ay bilaabatay aqalka sare baarlamaanadii idinla midka ahaa shaqo fiican ay qabteen laakiin kalsoonida iyo shaqo wanaagga iyo taariikhda aan maanta samaysayn cid samaysay male meel walbo iyo cid kasta oo dameynaysay arrimaha doorashooyinka iyo cid kasta oo ka warhaysay oo korjoogto ka ahayd
iyo meel walbaba waa laga sheegay oo lainkaga mahadceliyo oo lainkaga hambaliyeeyey sida kalsoonida leh dimuqraadiyadda ku jirto cadaaladda ku jirto xulashada ku jirto oo aada u soo saarteen sanataradii aqalka sare ee ugu habboonaa aada iyo aada ugu mahadsantihiin sidaas oo kale guddiga doorashada ee baarlamaanka koonfur galbeed asagana aada iyo aada ugu mahadsan yahay dadaalka iyo shaqada dheeriga ah uu qabtay iyo waktiga dheerna uu geliyey aada ugu mahadsan yihiin sidaas oo kale guddiyadii noocyada kala duwan lahaa seed iyo feed iyo xalinta khilaafaadka oo ayagana shaqada ugu muhiimsanayd qabtay ayagana waa u mahad celinaynaa aada iyo aada ugu mahadsan yihiin dhawaanyahay timarkii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo ku qaybsoontay doorashada siyeedka xubnood ee aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kama tala doono deegaan doorashada koonfur galbeed soomaaliya markii aada fiiriso sanatarada sida ay ku soo baxeen iyo sida lagu xushay iyo siday hadda yihiin waa xigmad rabbaani ah ilaahay baa nagu toosiyey ilaahay baana na haleesiyey 8 sanatar waxay ka sameyn yihiin oy hal mid ka yihiin aqoon ha ku kala sarreeyeen laakiin aqoonta shahaadiga oo maadiga iyo diinigo intana waxay ka yihiin waa ka sameyn yihiin dad aqoon leh ninka ugu yar master inta kalena inta laga sheegahayo PhD haysto waayo aragnimo iyo karti iyo hufnaan badan waay marka ugu horeyso waxay ka sameyn yihiin aqoon wixii la dhihi jiray waa ka sameyn yihiin aqoon la-aan kuma jirto marka xigto waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood oo bulshada laga rabay 3 dhalinyaro dad waaweyn iyo gabdho dumar 3dan waa ka kooban yihiin waxyaalaha marka xikmadda rabbaaniga ah oo ilaahay ugu guuleeyey oo dadka dhan aysan qabanan qabnay ka mid tahay dhawaanyahay timarkii magaalada baydhabo ee gobolka baay iyo ku qaybsoontay doorashada siyeedka xubnood ee aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoona madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaren use magaalada baydhabo ee gobolka baay xaflad in iska jartay mahadnaq golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo bowgaadin xubno cusub ee aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya usan suubi faysal maxamed isaaq tv-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed madaxtooyada